nooc ka mid ah kalluunka ku nool badda oo dadka xeebaha degaa u yaqaanaan muumin saleebaan ayaa ku soo caariyay xeebta deegaanka Garacad ee gobolka Mudug. kalluumaysatada iyo dadweynaha ku nool deegaanka Garacad ayaa aad ula yaaban saleebaankan oo dhererkiisu yahay 10 mitir balaciisuna gaarayo 4 mitir. gudoomiyaha deegaanka Garacad Cabdullaahi Jaamac Xirsi ayaa ka hadlay saleebaankan ku soo caariyay xeebta Garacad isagoo sheegay inuu qabo dhaawacyo ay u geysteen maraakiib jariif ah. magaciisa waxa la yiraahdaa baa la yiri dadkii badda aad u yaqaan muumin saleemaan baa la yiraahdaa baa waa bahal aan caado u ahayn inuu soo caadi ay caado u tahay baa la yiri waxyaalaha waxna ma cunaa leeyahay baalkaasi waxyaalaha badda maaragtay ku qaraqsama iyo badbaadiyaa baa dadku leeyahay baalkaas uu soo caariyay waxaana dilay maraakiibtaas dishay oo dhaawac baa ku yaala dheerarkiisa waynu mitirinay shalafog wuxuu ahaa 10 mitir oo dheerar ah iyo 4 mitir oo ballac ah intaas buu la ekaa waxa kale jira oo maraakiibtaasi ay geysataa qalabka badda la dhigo midka hore uga soo sheekeeyo way qaataa noolahana sida bahalkaas oo kale bay u laayaan waxa kale soo dhacay baasha qubada la yiraahdo oo xataa isku xirxiran waxay sameeyaan shariif bay badda dhigtaan wax allaala wixii noolahay ku xaaqaan goortay markabka ogaadiisa geeyaanna wixii ay rabaan bay kala baxaan waxa kalena ayagoo dilan bay daadshaan bahalkaani waxyaalaha ay soo daadsheen buu ka mid yahay qubadaasi waa ka mid kalluun waa ka mid dhibaatadaas noolahay ku hayaan waxay kaloo sameeyaan waxay jajabshaan meelaha gabaadka u ah nooluhu hadda gabaad la'aan ma noolaado